gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo shir jaayd oo ay ku qabteen xaruntooda ugu horeyn ka hadlay ayaa tilmaamay inay aad uga xun yihiin komishan ahaan in masiirkii ummadda lagula kaco fal anshaxa wanaagsan iyo wadaniyada ka dhana taasi oo abuuri in kaarka laga guro dadka laguna lumiyo xaqoodii dastuuriga ahaa waliba falkaasina ka dhaco caasimadda oo abuuri gudoomiyaha komishanka doorashooyinka mudane Cabdiqaadir Iimaan muraayadii dalka kaarkan lagu codeynaya waa astaantii qaranka iska leh lacag baa kaga baxday 20 milyan oo dollar in ka badan baa ku baxday inaynu soo gaarno inaynu kaar ka helno 20 milyan in ka badan tacab baa galay maskax baa gashay wadankoo dhan baa wixii qaranku lahaa loo jeediyay in la gaaro goobta ugu dambaysa oo ah inaynu doorasho xor oo xalaal qabsano oo hal qof iyo hal coda maanta waxa nasiib darra in xalay la qabtay dad Hargeysa gudaheeda oo caasimadii oo aan islahayn dadka ugu ilbaxsan baaba degan caasimadda oo isugu yimi in kaadhadkii dadka masaakiinta laga urursado ee uu xaq u lahaa ee astaanta qaranka ahayd oo loo adeegsado sifo sharci darra ah halka waxa ugu yimi war sheegaya in la qabtay dumar iibsanayay xaafadaha kamid ah Hargeysa iibsanayay kaadhadh sifo sharci darra ah ku iibsaday dadkii ka gurtay 62 kaadh baa la qabtay oo gacanta booliiska ku jirta maanta war miyaanay nasiib darra ahayn xisbiyadu inay waxa ka waantoobaan miyaanay ahayn inay taageerayaashooda ka wacyigeliyaan miyaanay ahayn miyaanay ayaan darra ahayn maanta inay dadka qaar ku kacaan oo waliba laga yaabo dadkii aqoonta u ahaayeen ama dadkii dhaqaalaha wadanka u hayeen inay kaadhadh dad masaakiin ah oo wax magaratada ka gurtaan annagu waxaan oranaa oo ay ka lumiyaan xaqii dastuurigu siiyay waxaananu maxayday farnay ciidanka iyo janankoodaba in la qabto loo gudbiyana maxkamad sida ugu dhaqsaa badan leh maxkamad loo gudbiyo gudoomiyaha ayaa geesta kale waxa uu halkaasi ka aqriyay ciqaabta uu mudanayo qof kasta oo ku kaca fal xadgudub ku ah habsami socodka doorashada kaasi oo ku xusan xeerka doorashooyinka ee number 20 waxaana uu sheegay in faqradiisa koobaad ay tilmaamayso qof kasta oo la yimaada kaadh goob codbixineed oo aan u lahayn amba waraaqo codbixineed oo dheeraada in uu mutaysanayo ciqaab 1 sano ilaa iyo 2 sano xariga amba ganax lacageed oo ah 2 milyan ilaa 3 milyan qof kasta oo kaysada buuri kaadh codbixineed oo cid kale leedahay tiyo ujeedadu tahay in uu maalinta codbixinta uga faa'iideysto qaab kale inuu isaguna mutaysanayo xariiq ciqaabeed dhan 6 bilood ilaa iyo 2 sano iyo ganax lacageed oo iyaduna dhan 500 ilaa iyo 2 milyan oo shilinka Soomaaliland halka qof kasta oo ku kaca qaybinta kaadhadh codbixineed amba waraaqa codbixineed oo beer abuura uu isna mutaysanayo 3 sanadood oo xariga ilaa 6 sano iyo waliba 5 milyan ilaa 10 milyan oo ganaaxa oo shilinka Soomaaliland waxa reeban oo kale in goob codbixineed laga ololeeyo amba laga hor istaago codbixiyaasha loo diidana inay codeeyaan la hadido la laalusho amba khalkhal gelin lagu sameeyo goobta codbixinta gudoomiyaha waxa uu xusay in faldambiyeedkaasi ciqaabta ka taala ee uu xusayo xeerkaasi lambar 20 ee doorashooyinka in ay tahay 6 bilood ilaa iyo 3 sano iyo ganax lacageed halka qof kasta oo xoog amba awood u adeegsada howlwadeennada goobta tiyo ujeedadu tahay in ay wax istamarin sameeyaan amba ay joojiyaan hawsha socota in xeerkaasi uu dhigayo inuu mutaysan doono 6 bilood oo xariga ilaa iyo 5 sano iyo waliba ganax lacageed howlwadeennada laftooda haddii ay dhacdo buuri in ay ku kacaan fal wax istamarin ah amba fududeynaya in la musuqmaasuqo natiijada goobta codbixinta inuu mudan doono xariiq ciqaabeed dhan 3 sano ilaa iyo 5 sano oo xariga iyo waliba ganax lacageed howlwadeen kasta oo sidoo kale si ula kaca u burburiya amba baabi'iya waraaqaha codbixinta amba qalabka goobta inuu isaguna mutaysan doono xarig iyo waliba ciqaab waxaanu dadweynaha uga digaynaa waxaanu xisbiyada uga digaynaa waxaanu taageerayaashooda uga digaynaa inay ku kacaan 7 qodob mid kamid ah kii ku kacana u naxariisan mayno waxaanu horkeenaynaa maxkamadda waxaynu ku kala baxaynaa waa sharciga
سعيد علي موسى afhayeenka guddiga doorashooyinka ayaa isna waxa uu xusay in qofku haddii uu xafidan waayo kaarka codbixinta xaqa uu ku waayo aysan ahayn kaliya codbixintan doorashada balse dhammaanba kaararkani ay yihiin kuwii ay ku geliyeen codbixiyaashu dhammaan doorashooyinka kale ee kala dambeeya ee dalka ka dhici doona isagoo geesta kalena ka digay dadka ficilada khaldan ee ka wada baraha ay ku kulmaan bulshadu oo dabcan hadimo weyn afcaashoodu ay u geysanayaan buuri qarankan curdinka loona baahan yahay in ay dalkooda u tudhaan kaarkaasi markaasi qofka laga qaadayo ama la gubaayo waxa muhiim waxa weeye qofku inuu kaarkiisa haysto waana idin sheegay intaasoo ka doorasho inta uu nool yahay intaasoo doorasho ku gali karaya marka yaan la idinka khiyaamayn yaan lacag ama cunto ama wax kale tol dhaafsiisan war kaarkan adiga xaq u leh adiga iska leh waxaad waayaysaa xaqaagii doorasho oo aad shakhsi ahaan ugu codayn lahayd ayaad ku waayaysaa marka waa inaad ilaashato waa inaad xafidato dadka iyaguna waan u degaynaa guryaha garaacaya qudhooda oo leh imisa qof ayaa halka iska diiwaan geliyay guryaha garaacaya waxay sheegeen dadkaas inay yiraahdeen commissioner soo diray waa been waxba kama jiraan annagu cid aanu diray oo xaafada u diray oo niri albaaba garaaca oo dadka soo diiwaan geliya bal inta reer walba ama guri walba ku jirta ma jirto been weeyaan yaan la idin khiyaamayn dadweynu inta ayadana waxa raaca waxa weeye waxa jirta in wararka goobaha ay bulshadu ku kulanto oo ay ku sheekaystaan iyagu ay yihiin ama waxaan loo yaqaano social media in ay yihiin rabshad iyo dhibaato weyn oo ka jirta oo waxyaabo aan loo baahnayn dalka iyaguna ka dhaliya taas iyaga waxaanu ka wada hadlaynaa shirkadahaasi adeegaasi sameeya oo aanu ka xiriireyno sidii bal wax looga qaban kari lahaa marka imika ka sii hor dhici maayo laakiin waxaan idin sheegayaa in ayan habboonayn in qabyaaladda reer ah ama family bay gaadhay ma aha yacni waxaa laga yaabaa in ay leeyihiin gruubyo ama koox wada socota oo lagaga hadlo waxyaabaha qoyskaasi ama familigaasi ama reerkaasi taasi waxay burburinaysaa waxyaabo badan waxayna dhalinaysaa warar badan oo qalad ah oo halkaasi laga sii daayo waxa ka dhalanaya halkaasi isku dir iyo colaad iyo in gacmaha la isu qaado taasina isku dhacyadaasi waxaanu ka doonaynaa in la iska fogaado laga fogaado oo laga cararo ma doonayno maanta in doorashadii inta u soo halgamaynay ay ka burburiso wax aan macna lahayn haba yaraatee oo aan waxba taraynin